waxaa mar walba laga hadlaa shabaabka kuwa maalgeliya oo lacagaha siiya oo ama waxay rabaan ha ku sheegaane magacay doontaan ha lahadaane magaca maaragtay lacagaha ku siiyo arrintaas ayadana waa arrin dembi ah oo aan islaamkeennuna aysan ogolayn in lagu caawiyo qof muslima dilkiisa in lagu kaalmeeyo qof kale xadiid saxiixa rasuulka calayhi salatu wasallam laga wariyo wuxuu leeyahay man acaana calaa qatli imri'in muslimin bishadri kalima laqiya allahu maktuuban bayna caynayhi aysu min raxmat illaah sidaas ayaa xadiid dhahaya calayhi salatu wasalaam laga warinayo xadiidkaas macnihiisa wuxuu leeyahay qofka ku kaalmeeya qof muslim ah ee walaalkiisa dilkiisa kelmad barkeedba allaha ka dhigee waxaa wejiga looga qoraa labada indhood intuu dhex leh mid naxariista ilaahay mid ka quusta waaya looga qoraa labada indhood intuu dhex leh marka ka waran haddaad xoog ama xeelad ama xoolo aad ku kaalmaysa ka waran ama aad xog siisay waxa waaye nasiib darro waaye qaybaad ka qaadatay dadka dilkooda aad qayb ka qaadato marka walaalayla waxaan leenahay ha ku fududaanina kaalmaynta cabsi kasta hadday kuu geynayso waxaa lagu qaatay intii xoolahaaga ama xeeladaada ama xoog